ugu horeyn waxaan rabaa inaan u mandaqo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud dhalinyarta reer Awdal waxaan uga sidaa fariin waxa u yaqaanaan Aaba Xasan in badan oo dhalinyarta ka mid ah maanta jeelal bay ku jiraan laakiin waxay sugayaan jawaab ka timaada Aaba Xasan federal government Soomaaliya inay jawaab ka helaan aad iyo aad waxaan runtii madaxweynaha aan ugu mahadnaqaynaa tallaabooyinka uu qaaday qadiyadda Awdal ka dhacday oo noqotay qadiyad Soomaaliyeed oo ummadii Soomaaliyeed oo dhan taabatay oo meel kasta oo tagtay ummaddu ay istaagantay anigu wada weynaha laga yaabaa waqti aan iskuullada dhexe dhiganaynay baa waxaa dhacay referendumkii Djibouti ee Faransiiska wi iyo no annagoo dhalinyaro waxaan ka lugeynay Camuud ilaa Qulijeed waa lugeynay waa la soo qaqabanayay wax yani dareenku markuu ku hayo wadaninimadu ku hayso runtii cidna kuma joojin karto marka waxaan aad iyo aad u jeclaystay inaan u mahadnaqo dhammaantii u mahadnaqo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed sida ummaddiisa uu hogaamiyey iskugu taagay qadiyadda dhulkeenna waa dhulkeenna wuu fahmay ummaddana wuu taabsiiyey ummadduna way la aragtay qadiyadda Awdal markaas sidii uu sheekhu sheegay waxay isku soo dhaweysay wixii la odhan jiray Soomaalinimada no doubt meel walba waa laga dareemay waxaan kaloo rabaa inaan mahadnaqo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa oo runtii si fiican noola shaqeeyey meelo badan irido badan noo furay waxaan jecelahay oo kale xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo runtii iyaguna na tusay halkan aad joogtaan magacyadiina kulley qaarkiin baan garanayaa my old friend Ali Fiqi Saciid ورشيد بدان عبد القيديد حمزة هذه أداة ما سنتين إن رنتي نسود ويسان وجيه عصبنا أنا أرجنو كوي هورنا أنا أرجنو تاريخ ويسون قنيسة إنه تاريخ ويس قرطة we go back 20-30 years more than 25 years ago group and كوا ذكري على سيد فقي oo Soomaalina dhisaynay ma ogtahay tiin baan wali wadnaa marka ummaddu inkastay kala fog tahay haddana way isku xidhan tahay qalbigooga isku xidhan Soomaalinimada isku xidhan aad iyo aad baan markaa ugu mahadnaqayaa dhammaantiin waxaan si gaar ah rabaa inaan u taabto haddii kale I don't want to miss this xildhibaanada gobolka Awdal oo runtii yani diyaaraday noo soo fuuleen waxay noogu yimaadeen meelaha aan joogno way iskaga ag taageen way badheereen waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa tallaabooyinka aad qaadeen howlaha aad gasheen halkan aan ku nimidna la'aantiin ma dhacdeen taa ogaada